Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhowaada asxaabta. Waa mar kale iyo muuqaal cusub iyo barnaamijkeennii taxanaha ahaa ee ma ogtahay. Ma ogtahay daawadow in suuradda Qur'aanka ka mid ah ee uu aayadaheeda dhammaantood ku jiro magaca Allah ay tahay suuratu Mujaadalah, waana suuradda aynu u naqaano Qad Samic. Ma ogtahay in awrku yahay xayawaanka ugu xasuusta dheer xayawaanada. Mase ogtahay daawadow in kitaabka Qur'aanku yahay kitaabka loogu akhriska badan yahay caalamka, laguna turjumay luqado fara badan oo kala duwan. Ma ogtahay in asxaabigii fardaha ka dheeran jiray uu ahaa Salamata ibnu al-Akwac. Ma ogtahay daawadow in dalka Masar uu furtay saxaabigii Camri binu Caas sannadii 20 ee Hijriga. Ma ogtahay in dagaalkii Badar uu dhacay sannadii 2 ee Hijriga. Ma ogtahay in uu dayaxu uu dhulka u jiro 300 oo kiiloomitir. Ma ogtahay in ereyga lab iyo dhadig ay Qur'aanka ku soo arooreen 23 jeer. Ma ogtahay in lafta ugu yar ee jidhka bini'aadamku ay tahay lafta dhegta. Ma ogtahay in amiirkii ugu horreeyay ee Islaama uu ahaa Cabdillaahi ibnu Jaxshi. Ma ogtahay in xarfaha afka Soomaaliga lagu soo koobo weedhuu sameeyey Cabdulaahi Suldaan Timcadde oo ah sheekheena wiilkiisa curad gabadhu qabi jiray fuxla'aan ma haysi karto. Weedhan ayaa waxaa ku jira 26 xaraf ee afka Soomaaliga. Ma ogtahay in sankaagu uu awood u leeyahay inuu uriyo in ka badan 50,000 oo urood maalin kasta. Ma ogtahay daawadow in socdaalkii ugu dheeraa ee uu nebi galo uu galay Nebi Muxammad sallallahu calayhi wasallam. Waxa uu habeen qura ka socdaalay Maka, waxaana uu tegay Qudus, halkaas oo uu uga sii gudbay samada 7. Waana habeenkuu Ilaahay ummadda Islaamka ah ku soo waajibiyey salaadaha 5 ah, waana habeenkii Laylatul Israa wal Micraaj. Ma ogtahay in ururka Xamaas ee mujaahidiinta reer Falastiin uu aasaasay Sheekh Axmed Yaasiin, oo ahaa sheekh caan ka ahaa dalkaasi. Mase ogtahay in Sheekh Axmed Yaasiin uu ahaa sheekh curyaan ah oo lafta dhabarka jaban. Mase ogtahay in mujaahidiinta Xamaas ay Yuhuudda kaga adkaadeen 3 dagaal. Ma ogtahay daawadow in bidaarta uu sababo khalkhal ku dhaca hormoon dheecaan ay raggu leeyihiin, kaas oo loo yaqaan testosterone. Waana sababta ay ragga oo quri bidaarta u yeeshaan ee aanay dumarku u yeelan. Ugu dambeyn, waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalkeena. Tan iyo kulanti dambe, waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum.